waddanka South Africa gaar ahaan magaaladan Cape Town waxaa waayahanba ka soconayay rabshado ay sameynayaan dad South African ah kuwaasi oo dhibaato ba'an ay ka soo gaartay ajaanibta ku nool waddankan gaar ahaan Soomaalida. Dadkan oo u eg mudaharaadyaal ayaa waxaa lagu arkayaa waddooyinka qaar ayaga oo la taagan dhagaxaan iyo basiin kuwaasi oo gawaarida tuuriyeynaya kadibna dab qabadsiinaya. dadkan ayaa sidoo kale waxa ay isugu soo baxeen xaafadaha qaar iyaga oo boob u geysanaya dukaamada ay leeyihiin ajaanibta gaar ahaan Soomaalida kuwaasi oo boob ka geysanaya kadibna dab qabadsiinaya. lama garanayo ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa rabshadahan amaba mudaharaadyadaan ay sameynayaan dadka ku nool xaafado ka tirsan magaaladan Cape Town ee waddanka South Africa, balse wararka qaar ayaa sheegaya dadkan inay ka cabanayaan koronto la'aan baahsan oo ka jirta xaafadaha qaar ee magaaladan Cape Town. dadka Soomaalida ah ayaa ah dadka ugu badan ay saameynta ka soo gaarta rabshadahan ama marka oo ay dhacayaan mudaharaadyada sidan oo kale ah. sababtuna waxay tahay dadkan oo ku nool xaafado isku raran ah oo markaasi gurmadka booliska amaba gurmad si degdeg aan ku heli karin. si kastaba ha ahaatee Soomaali fara badan ayaa waddankan waxa ay ka soo gaartay dhibaatooyin aad u fara badan kuwaasi oo isugu jira dil, boob iyo weliba sidoo kale hanjabaadyo joogto ah oo